gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley Cali Aadan Bayle ayaa maanta si wada jir ah uga qayb galay dafcadii koobaad ee ka qalin jabisay maxadka waxbarashada culunta kombiyuutarka ee Gabiley munaasabada ballaaran oo lagu qabtay hotel askar ee magaalada Gabiley oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Gabiley taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley iyo waliba saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada arday aad u tiro badan iyo guud ahaan bawqaasha kala duwan ee gobolka ayaa goranba waxa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay maamulaha dugsigaasi culunta kulliyadda kombiyuutarada Gabiley Mukhtaar Nuux Khaliif waxa uu sheegay isla markaasina ku dheeraaday ahmiyadda ay culuntan u leedahay isagoo sheegay in maxadkan markii la aasaasay uu ku bilaabay isla markaasina ardaydii ugu horeeyay ay maanta ka qalin jabiyeen taasoo uu sheegay in ay ku dadaalayaan sidii ay ku soo saari lahaayeen arday wax ka barata guud ahaan gobolka Gabiley انت هو المسؤول الجمهورية كلاشة يكون بوشيكيس وحين يدور عند كلام وحين كمان information إنه لو كان واحد يقول هالكاسي هذا لك من كسر جدي أرتدي وحكبرتي ما حد وحبرشة يقبله تاسو أي أرتدي وحكبرنا سيكون أمانة مامور كايو ولا معلمين تا وحكريجا ما حد كاسي سيديرنا أي وحبريين مامورها تكسي سرعتي مع محمد محمود سليمان أوس يوريما مامورها تكسي صدح الشيخ محمد ورسمي أحمد محمود شروة ويقول هالكاسي كهذا يا شيخين سودا وين يا كمامورهان أرتدي وحكبرت تكسي يعني كاسو شيخين أرتدي ما أنتوا حكبرنا سدكسجني هنا أرتدي كسر بحي تكسية السرائية ولا تكسية هوسة قبل كقبل والدين يضي ولا قالوا كل سيافك والدين يوقاش قبل ويقول هالكاسيكا الله يا مام دكسجاسي وكمان قصيدة ديرنا وحبريان قدومية وحبرشة قبل كقبل علي آدم بيلي أيا قبل شاقين وثارته وحبرشة أي ديري كلنا سدكسيكستو يا وحبريا أرتدي تكسية كلتوان كهول كلا قبل كاس وحاولنا شاقين لو بهاي لو قيب قاتو أذاك waxbarasho ee lagu barayo ardayda wax ka dhigta dugsiyada gobolka Gabiley barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley oo gabagabadii munaasabadaasi soo afmeer ayaa u mahadnaq ardayda kala duwan ee iyagu maanta ka baxay dugsigaasi isagoo sheegay in dugsigan lagu barto culunta kombiyuutaradu yahay dugsi ay ka maamulaan soo dhaweynayaan waana kulliyadii ugu horeysay ka qalin jabisay maxadkaasi Gabiley ee magaalada Gabiley waxaana ahayd kulliyad baranaysa culunta kombiyuutarada taasoo ay maanta ku jireen saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta iyo waliba boolis oo iyaguna wax ka baranaya muddadii maxadkaasi jiray taasoo ay maanta mas'uuliyiinta booliskuna uga mahadnaqeen dugsigaasi iyo waliba maamulayaashaasi wax ka bara ardaydaasi waxa halkaasi shahaadooyin lagu siiyey ardaydii wax ka baratay maxadkaasi waa Nimcaan Dheeg Ibraahim Gabiley.